بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قبل كتقدر عندك سماء أهل قدومية كحيينك قبل قدوميها قبل كسراج هالكن حفلة مرتدى ينوقوها قدوميه هراء قبل كحسبك كلمية قدوميها عصور قدوميها قرب كهواك دلنيرada أخيارتا عقاشة odayaasha dhalinyarada culimada haweenweynaha xisbiga kulmiye dhamaantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waa laga soo hadlay dad badan oo mudana baa ka hadlay marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa waxaan boogaadinayaa sahal aadan gudoomiyihii hore ee gobolka muddadii uu xilka xisbiga hayay inuu ahaa nin ku filan oo si fiican xisbiga hawshiisa u soo waday si waayeelnimo iyo dulqaadnimo u soo waday sahal waan ku hambalyeynayaa. nin baa hadda halkan ka hadlayo wuxuu yidhi xuseen baa wuxuu yidhi sahalo waxba laguma kordhina dhamac baa laga dulqaaday mas-uuliyadoo dhan baa horta dhamaca. sahal si aad iyo aad u fiican oo xilli fara badan oo muddo 10 sannadood ah oo xisbigu mucaarid soo ahaa ayuu ka soo dabaashay hawlihiisii inta 5 sano dambe xisbigu xisbul xaakimka ahaana maxaan ku dhahday sahal xilkuu hayay xilkana marba qofku meel buu ka qabtaa. sahal waxaan rajaynayaa xilka xisbiga uu haynayaa inaanu kan gobolka un ahaanaynin inuu xilal kalena xisbiga ka qabanayo oo xilalkiisa heerka qaranka uu ka qabanayo. waxaan leenahay sahal aad iyo aad baad mahadsan tahay, xisbiga waad u soo hargantay, waad u soo shaqaysay, waana lagu mahadnaqay, si fiican baa maantana lagugu markhaati furay. gudoomiyaha cusubna waan ku soo dhaweynayaa xilka, waxaan leenahay allah ha kugu asturo. sahalla intaa imika sii wada joogaysaan in badan baa sii wada joogaysaan oo isagana xilkuu hayay iyo ballamihiisa iyo mid waliba siduu ahaa isaguna wuu kaala ballamayaa, annaguna waanu kula shaqaynaynaa. madaxda gobolkana sidii halkan uga ballan qaadeen ayagana waxaan ka codsanaynaa inay maxaan ku dhahdaa ay la shaqeeyaan. intaa marka laga soo gudbo xuseen baa wuxuu yidhi waa kii xuseen kaftamayee yidhi warawal cumar yaynu ka ahayn. xuseen waa raggii waxaan ka markhaati furayaa waa asaasayaashii xisbiga, waa raggii soo shaqeeyey, waa raggii geed dheer iyo geed gaabanba u soo fuulay. laakiin waxaan qiyaasayaa xuseen markii kulmiya uu guulaystay ee xukuumaddii iyo dowladdii noqday dad badanoo kulmiye meelay ka soo galeen garan waayeen meeluu ka soo galeen uu garan waayayoo xilal waaweynoo kulmiye ahaya. marka xuseen waxaan odhan lahaa xuseenow waxaa la yidhahdaa nin aad u fiicnaayo madaxweynayaashii maraykanka ugu adka ahaayoo la dilay kennedy ninkii la odhan jiray baa wuxuu yidhi guushu way goysiyaal badan tahay, guuldarraduna waa agoon. iminka maalintii kulmiya dhacay 80kii codan laynaga boobay nin quroo kulmiyo oo qirtay ma jirto oo odhanaya 80kaa codana iga baxsadeen 80ka anaa sii daayey nin quroo kulmiyihii ma odhanaynin. laakiin markii la guulaystay qof kaloo kulmiyihii wuxuu odhanayaa naalaahi oo haddaanan maalintii halkaa jooginoo haddaanan shirkii halkaa qabaninoo haddaanan halkaa kaga dhufaninoo miyaa bahashaba la heli lahaa. marka xaaji xuseen guushu way iska maxaanku dhahdaay way iska geesiyaal badan tahayoo rag badanoon waxba kugu lahayn ayaa markii dambe maxaanku dhahdaay guushii kaala qayb galay. dabadeedna waxaa laga yaabaa qaar badan
oo dadkii bahasha dhalay ahaa inay sidaa ku qadeen laakiin maxaa lagu raalli noqdaa horta dad xilkan hadii jeer lagu degdego waa lagu gubtaa aniga nimanka kula hadlaya xaaji qoladii sanadii afartii uu horeeyay baan ahayo kaligeena waan ka noolahay tii kulmiyana imaka xilka ma hayo kuwii kalena xilka ma hayo laakiin waxaan ku raalli ahay wixii aad u soo halganteena wuu dhalay tii kulmiyana way dhashay marka sidii qolada qaarkood ma aan inta isku qancin karaynin waarda hadaad wax ka weydeen bahasha caabudu meesida iskaga tag oo xusbiyada kala gal marka xaaji waxaynu raalli ku nahay xusbigu waa kan madaxweynuhu dhalay dawlad buu dhalay maamul buu dhalay harumar buu dhalay hawl fara badan buu dhalay waxaan ku soo ururinayaa kelmad waa fariin waa tii uu gudoomiyaha gobolku idiin sheegay waa arrintii diiwaangelinta waa fariin qarankoo dhan kolley hadhowta hadda waa la soo baxayaa laakiin waxaa lagu soo baxayaa barnaamij komishanka doorashooyinku uu sameeyey macal xusbiyada qaranka waa arrintii doorashadii qalabkeedii wuu yimi tijaabadii u dambeeyay intii dhaweyta hargeysana way ku sameeyeen idinkana halkan way idinla yimaadeen fariintaasi waxa weeye ha laga qayb galo maxaanku dhahdaayay diiwaangelintu ujeeddadeedu ma aha oo keli ah in aad noqoto qof codbixiye ah oo kaarkiisii codbixiyaha qaatay laakiin waxaa la rabaa halka meesha ay faa'iidada ka leedahay waxa weeye ee ugu weyni Somaliland lafteeda aynu doonayno inaynu ictiraafka u helno haddii aynu geli weyno diiwaangelinta codbixiyayaasha oo barca 100,000 dhaafi weydo oo Hargeysa 300,000 dhaafi weydo oo gobol hebel 50,000 qof dhaafi waayo Somaliland ay ictiraafayo wax ku falaya dadkiisa kaarka muwaadiniinta qaata markay gebigooduba ay noqdaan dad milyan ka yar ama 500,000 ka yar hadda waxa weeye waa ilaa caruurta tira badan baa isdhintay marka tirooyinkii la hayay Hargeysa markii la isu geeyay way isdhimayaan codadkii hore lagu noqnoqday ee xaraanta ahana waynu kaga gudbaynaa ninkii jiray wuxuu wariyaan anigu gini runa baan hayaa kaarka runta baynu qaadanaynaa gobolka Togdheer hay sabablo gobolada kalena waan faraynaa waxaan leenahay dadku ha qaato kaarka aqoonsiga ee wasaaradda dakhligu ay maamulayso iyo kaarka codbixiyaha ee komishanka doorashooyinku uu maamulayo xilli baa la gaadhayaa hadhowto aad u baahato wax fara badan oo aad xuquuq u leedahay aad ku weydo kaarka aqoonsiga muwaadinka ayaad wax badan ku haysa waxa laga yaabaa iminka beelaha qaarkood marka baasaboorada laga shakiyo adduunyada shaki ka jiro dalal fara badan intay sanadaad xaq ku lahayn ayaa markay baasaboorkaaga arkaan odhanaya mee kaarkaagii aqoonsigu say labadoodu isu dabaqaan intaasaan maxaan ku dhahdaa ku soo koobaynaa arrintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaynu markaa gelaynaa kolley xilligii diiwaangelintana waxaa hoosta kaga larban oo hoosta kaga kala xidhiidha waa doorashadii markaa waxaan leenahay xusbiga kulmiye waxaynu diyaargaroobaynaa kow diiwaangelinta madaniga ah iyo diiwaangelinta codbixiyahaba waynu diyaargaroobaynaa waayo ololaha doorashada waxaad la shirtagaysaad hadhowta ku codaynaysaa waa kaarkii haddaanad haysanin codayn maysid labadaba waynu diyaargaroobaynaa ololaha doorashada ee kow ka tahay waxaynu aad iyo aad u ilaalinaynaa kelmadda kaga baxaya waxa weeye asalkeedaba sideedaba maxaanku idhaahdayay dawladaha hadda waxaa loo samaystaa in horumar lagu gaadho dawladaha waxaa loo samaystaa in horumar lagu gaadho horumarku waa maxay ma in siilaanya la saaxiib yahay oo lacag qaadataba ma gobolkan Togdheer oo madaxweynuhu u dhashay inuu keligii harumariyaaba ma maxaanku idhaahdayay inay dawladdu fadhiid noqoto oo ay waxba qaban weydaaba waxaynu dawladda u samaysanay inay harumar samayso harumarkii maxaa ka mid ah waa kooban tahay way cad tahay muran male
xisbiga kulmiye dalka wuxuu ugu yimi isagoo miisaaniyadiisu 50 milyan tahay xisbiga kulmiye xilli doorashadii ugu horeeyay ee madaxweynaha la doortay waxa uu marinayaa 250 milyan oo dollar balad dad badan oo mutacalimiin ah fadhiye markay 50 dollar ahayd 250 imika ay marayso imise maxaan ku dhahdaayay boqolkiiba imise korodhay xisbiga kulmiye wuxuu yimi qofka shaqaalaha iyo askariga $20 $30 qaato boqolkiiba boqol baa la kordhiyay boqolkiiba 20 dambana waa loo kordhiyay xisbiga kulmiye wuxuu yimi iyadoo tacliinta la yiraahdo tacliinta asaasiga ah dadka dayartiiha ay la rafanayaan oo wuxuu ka dhigay bilaash xisbiga kulmiye wuxuu yimi cusbatalka burco maalintii waynu garanaynaa sidoo ahaa axmed cabdi oo imika ceerigaaba ka yimina sida uu ahaana waan garanaynaa cusbatalka ceerigaaba xidhnaa kan burca xidhnaa ka hargeysaan maxaan ku dhahdaayay xidhniin aan waxba dhaamin dalka cusbataaladiisii oo dhanna wuu shaqeeyay waxa kale oo jira wasaaradda beeraha tagnay tirakoob baanu ka soo qaadnay ingiriiskii ilaa dowladii maxamed siyaad barre dowladii maxamed siyaad barre 25 sanadood aynu dalka joognay xisbiga kulmiye ceelasha dalka laga qoday wuxuu ka mid yahay ilaa dowladihii hore ee Soomaaliland 20 sanadood ka horeeyay iyo 30 sanadood aynu dowladda xorta ah ee Soomaaliya loola jiray aanu ahayn marka arrintu inta marayso aynu halka marayno jaamacadaha maxaan ku dhahdaayay arrimahan oo dhan xisbiyada mucaaridka iyo xisbigan kulmiye iskuma haystaan barnaamij horumarineed iyo barnaamij siyaasadeed iyo barnaamij maxaan ku dhahdaayay annaku kaasaanu leenahayo kaasaanu hirgelinayna imika waxaan isku haysanaa inta yar nabadgelyada dalka ka jirta waanu burburinaynaayo waareenaan burburinayna annagu nabadgelyada guri kagama jirna keligaye gidigeen baa guriga nabadgelyada ku wada jira aynu arrinkaa ilaalino waxaan ka codsanaynaa dadka shicibka dadka kullu xisbiga taageera haweenka dhalinyarada waxaan leenahay nabadgelyadana aynu la shaqayno nabadgelyadana aynu ka shaqayno maamulka dawladda ee gobolkiina joogana aan kala shaqayno waxaan kaga baxayaa ku gabagabeynayaa gobolada marka imika la tirakoobo dadka marka imika la qiyaaso arrinta tahriibta reer burcaynu nahay idinkaa u badan waxaan leenahay tahriibta waxa wax laga faa'iideeyo male anigu hadda waxaan ugu tagay 2013 baan Ingiriiska joogay anigu waan tagaa carruurtaydana ma geeyo reerkaygana ma geeyo waxa ay ku dambeynayaan baan ogahay inaanan carruurna yeelanaynin islaantuna markay dhintay yeeriisu anigu taasaan ogahay waxaan leen ku soo arkay oo imika jooga intii dhalinyaradii xaafadda Abudabi baan ku jira cid kale iska daa dhalinyaradii xaafadda Abudabi oo waalasha ku wada dhow oo sharci la sii waayay oo guri la sii waayay oo nin walba inta xaafadooda la yiraahdo caawana hebel ha la saxdo anu waxaan idin oran lahaa aad idinku adkeynaya arrinta tahriibtii waa dambi ubadka laga galayo waa qof weyn oo ubadkiisii dambi laga galayo ilaahayna aakhire qofna ku saamixi maayo culimadu waa halka fadhida waa kuwa halka fadhiya daliilkii bay u hayaan ilmaha caruurta ee la dirayo ee la isleeyahay caynhaydii soo shaqaysto mahalakada iyo masiibada la marinayo ilaahay aakhiro uu inaga jaraya marka waxaan leenahay arrinka dib u noqda yaan been leedin sheegin inabadii halkan ka wada tagay waa wada bilaa sharci laakiin yaa sawir yar qurux badan u baa London iyo Sweden iyo laga soo sameeynaya qaar baan maandhood hargeysa ku yiri damid qurux badan idinkuna ambassador iyo maasuriya ku gala halkan imika balaasa iyo maxaan ku dhahday deera hotel iyo maxaan ku dhahday cigaal iyo
ramadiyo daynta ku gashaan kuwa u diraxad ku taadabalaga meeshaan joogno aadi aad baan idin hambaleenayaa gudoomiye sahal waxaan leenahay xisbiga odaygiisii baad ka tahay xasan mataanna waynu soo dhawaynaynaa bulshada ka soo qayb gashayna ayaa gaar ahaan haweenkana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu